iyo xaaladdu maxay tahay waxaa ila soo xidhiidhay gabar ay daris yihiin maamada soomaalidu waxay aad u jecel yihiin horta inay markii hore ogaadaan oo snapchat-kayga luuqa laygu wareeriyey oo facebookga laygu wareeriyey waa qolada waa idiin sheegi doona ii farfadhiista arrintu ma jirtaa mise ma jirto arrintu way jirtaa waxaan saaka isku dayay inaan la xidhiidho hooyadii wiilka dhashay oo habaryartay ah magaceeda waxaa la yidhahdaa ayaan sida ay wiilka ku soo korisay iyo xaaladda wiilka uu ku sugnaa ayaan rabaa inaan idinla wadaago shacabka soomaaliyeed meesha sidaad arkayseen foolxumo iyo waxaa ka dhacday wax musiibo ah oo aad iyo aad looga xumaado hooyo ayaan waa habaryartay markaan habaryartay leeyahay waa hooyo soomaaliyeed waxaan rabaa inaan qabiilka idinku sheegana because waa i wareeriyeen dadkii baa i wareeriyey snapchat-kii luuqa iyo facebookga bay ii soo galayeen laakiin markaan idiin sheegay ha u qaadanina inaan qabiil aan jeclahay oo aan raba inaan qabiilka idiin soo dhigo waa ogaasho aan raba inaad ogaataan hooyo ayaan waa hooyo reer sheekh isxaaqa waana hooyo habar jeclaa waana habaryartay marxuumku waa marxuum soomaaliyeed waa wiil daarood ah hartiya warsangeli hooyo ayaan waxay degan tahay ohio columbus waxa ay ku soo korisay agoonnimo ayay ku soo korisay wiilku uu xanuunsanayay 14 jirkiisii ayaa xanuun xagga maskaxda uu ku dhufto intaasoo dhan waxaa la tacaalisay oo haysay hooyadiis ayaa waxaa lay qoray lambarkeedii waan wacay uu dansan yahay laakiin waxaan rabaa in bulshada soomaaliyeed aan hooyo ayaan oo maqlasa aan soo geliyo markaan helo ummadda soomaaliyeed ay afkeeda ka dhageystaan waxa ay hooyo ayaan ay tiraahdo insha allah bidnillahi kariim wiilku agoonnimo ayay ku soo korisay hooyo ayaan wuu baxay waxa uu doontay daawo waana la waayay kabacdi waxa uu yimid booliis maalmo kabacdi waxa uu sheegay in wiilkeedii uu dhintay oo cusbitaalka uu yaallo daawo ayuuna doontay waxaad ila dhagaysataan gabadha dariska la ahayd oo hadda iyadu joogta Afrika ayaa markay arrinta aragtay soo wacday hooyo ayaan oo tiri hooyo see wax u dhacay ila dhagaysta السلام عليكم السلام عليكم جماعني ور حالتي دينا كي سبتي دي بالدوغي رجينا وين قراجين صدحدي بركي باي مادن لكن انا كل بدي بان تقناي markaan tagnayna ninkii baan ku yiri inankayga i tus inankayga doctor wasti baa qashaan ku yiri doctor wasti baa qashay waxaan rabaa inaan arko inuu asagii yahay in kale markii la furayna qalbiga ay taqtaqay waan dhici gaaray gabadh baa ka duubaysay waa taqaylinaysa iyaduna marka qof kaliya oo ragii yiraaha COVID-19 lama qalo waa la waayay shib saasay u hoganayaan war iigu yeedha news baan ka kari waayay ilaa jimcihii hore war news iigu yeedha arrintaan ka shifno arrinta inay dhibina gaaray aan u sheegno adiyaaba daalaya anaa ku xabeebsadaysaan u hadlayaaba ilaa meel adduunka dhaanta allaha geeyo meel adduunka dhaanta allaha geeyo meel adduunka dhaanta allaha geeyo eedda ilaahay u naxariisto ilaahay isagoo 14 jir buu waasho dambiba ma lehe gacanka xaqdaran baa dishay saasay u galeen wuxuu yidhi nin waa qofkii 31 oo la duugo oo aan la arag laakiin inankan ilaahay baa ku bayaamiyay ninkii oo ku qasbay oo uu ku shiday marka waxaan ku yiri waa miskiin buu cid wax ma dhibi jirin naftiisu u daraa aniguna waan gartay inuu qasho wid jimcihii hore aan gartay in la qasho war inankayga waa la qasho war newskaygu yeera war dhakhtarka aan tagno mudaaraadno raga wastiga ninkii dhanay imaamka masaajidka iyo ninkii ila hadlayay maalintii Chris maxay aan ku yiri war kaale masaajidka dhakhtarka ula hadal oo wacay waxay ku raan wana yarago way ka war wana yaragoonkii way qasheen waa ka sidaas u balaqayay lama tolin waxay u diidayeen in la dhaqo COVID-19 gaaladii baa kuwii talaagada iyo kuwii dhakhtarka tashaday waxay raaheen aanu qarino ilaahay ma qarino haddana waa lay balaqato ilaahay baa ka shifay rabbiga raxmaanka ee ilaahay samariya imaan naga siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا معان
weli maanta la sugaya in looyarka yidhaaha la aaso insha allah maanta ama beri weli akhbaar kamaanu helin igu salaan ciyaalkeedu khayr baan ku rajaynaya sheekadiina weli way socotaa insha allah haye tasmacaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay waa maqlaysan Soomaaliya qofka ooye ee hadlaya waa hooyo ayaa hooyo 14 jeer maalinta uu ahaa marxuumku ayaa waxa haleelay xanuunka maskaxda wuu xanuunsanaa waxayna ku soo korisay agoonnimo agoon buu ahaa okay hooyo ayaa markii dhibku ku dhacay waxa ay tagtay masaajiga wastiga ku yaala Abu Bakar ee Columbus cid haba yaraatee ka hoos qaaday oo la hadashay ma jirto ummadda Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed ee America jooga waa culimo naxariistii ka tagtay waligay culimo kuma fogaanin laakiin maanta waan ku fogaanaya waana ku durdurinayaa culimadu waxay urursadaan lacagta laakiin ma yaqaanaan si qof iban oo community-ga loogu qabto bal waxaad ii sheegtaan Soomaaliyeed ninta masaajid aad aragteen ayaa ku yaala magaalada Minneapolis ka soo tag St. Paul Minneapolis ku yaala dayaca caruurihii Soomaaliyeed ku haysta wadooyinka magaalada Minneapolis waa aragteen hal wadaad oo caruuraha la jooga oo maalin cunto siinayo qofka Soomaaliyeed ee arkayo bal ii sheega waxa tiraadaan wadaad hebel baa tagay oo caruuraha wax u qaybinaya ma jirto mid Highlander wata ama mid suud wata ama mid khamiis cad wata mooyaane mid dadka u imaanaya oo oranaya xitaa wacd u jeedinaya oranay war alkalada iska daaya war waa oo tabaruc u sameeyay ma jirto waxaan arkaa gabdho Soomaaliyeed oo meelaha wareegaya oo cunto iyo biyo siinaya dadka Soomaaliyeed ee homeless-ka ah hal wadaad oo Soomaaliya wali ma aan arkin hooyadan Soomaaliyeed afar dumara Columbus inta Soomaali degan waa ogtihiin afar dumara ayaa meydkii ka dul ooyaya waxa ay tageen masaajidka wastiga Abu Bakar ee Ohio Columbus qof ka hoos qaaday oo la hadlay ma jirto hadda masaajidadu markay lacag rabaana lacagta ugu badan 90% lacagta donation-ka masaajidada waxa bixiya dumarka Soomaaliyeed aaway markaa culimadii hooyadani waxay inoo cadaysay inay wastiga Columbus masaajidka ku yaala Abu Bakar ay tagtay hal wadaad oo taagan goobta miyaad aragteen war ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed ilaahay baan idinku dhaarshay dhibaatadaas baynu ku qabnaa culimadeennii war culimadii waxay urursanayaan lacagtii siyaasigii Soomaaliyeed ee tartamayay wuxuu urursanayaan codkii cid wax ku qabanaysa ma jirto cid wax ku qabanaysa ma jirto culimada magaaladan degan ficilka aan maalin dhaweed anigu goobjoog soo ahaa oo aan soo taagnaa Soomaaliya dhan ay arkayeen ee waliba qoyskii arinta ku dhacday ay arkayeen waxay ahayd in aabba Soomaaliyeed wiil Arab oo hooyadii Soomaali tahay uu gaaray intuu ku dilay uu ku dhuftay waliba markuu dhacay uu ku soo noqdo madaxa ka jiirsiiyay oo aan videogii maxkamadda dhexdeedii ka daawado wiilka Arabka ee hooyadii Soomaaliyeed tahay waxa lagu soo daayay $100,000 oo beela waxaana lawyer loogu qabtay $80,000 Mareykanka ah waxa qayb libaax la ka qaatay nin magaaladan wadaad ka ahaa oo masaajidka Abu Bakar Sadiq boorka ku jiray haddana masaajid Bulumitoona jooga oo Xasan Dhooye la yiraahdo oo hooyada wiilka dhashay ay isku qabiil yihiin kamuusan xishoonin hooyo Soomaaliyeed oo ilma afar jira ninkeedii la dilay oo haysata maanta agoona oo qolkii maxkamadda ka dhaxooysa wuxuu soo xidhay suud waxa uu soo xidhay garabaati waxa uu yimi maxkamaddii wuxuu fariisay sayrkii family dulmiga geystay ilaahay baan idinku dhaarshay shacabka Soomaaliyeed oo oranaya nin madaada ayaa wax laga sheegay meesha uu fadhiyo wadaadkaasi meel ku habboonayd inuu yimaado ma ahayd hooyo Soomaaliyeed oo ilma afar jira looga dhintay ayaa ka ooyisay maxkamadda dhexdeed gabar Soomaaliyeed oo meydkii walaalkeed aragtay oo gaari lagu soo celiyay ayaa ka dhex ooyisay aaway markaa bila aadnimadii aaway islaamnimadii aaway Soomaalinimadii ummadda Soomaaliyeed oo ilaahay baan idinku dhaashay Columbus inta qof Soomaaliyeed degan iyo inta masaajid waa maqlasay
hooyadu waxay afkeeda ka qirtay inay wastiga columbus ay tagtay masaajidka abubakar imaamka xitaa ula hadli waaye maxaa inoo dhiman haddaba aaway dadkeennii saasaa hooyooyinkii soomaaliyeed uga ooyayaan bannaanada saasaa meydkoodii ay u dul taagan yihiin hadhowna ninka culimmadu intuu khamiis ii soo qaatay ayuu wuxuu odhanayaa yaa ilaahay wax siiyey masaajidka wax soo siiya caloolxumad intaas leeg baa taalla hooyada 14 jir buu wiilku ku xanuunsaday xanuunka maskaxduu qabay agoonnimay ku soo korisay culimmadii bay u tagtay cid meydkii dul taagan hal nin oo meydkii dul taaganoo soomaaliya ma aragteen aaway culimmada aaway muxuu masaajidka abubakar ee ohio west columbus ohio uu ka dhisan yahay haddaanu caawinayn hooyada soomaaliyeed ee ilmaheed lagu horqashay ta kale Somali community America mid baan rabaa inaan ogeysiiyo war waxaa jira marka ay dhiga driver laysanka aynu qaadanano ee dadku ay dhiga qaadanayaan jirkaaga ma ku deeqasaa haddii la dhinto waan idin calaamadinay waan idin tusayaa waxyaalo badan oo noocaas oo miiran ayaa jira waa in la ogaado waa in qof kasta ay dhigiisi uu ka daba tago arinta waxaa laga yaabaa in wiilku uu ay ugu jirtay waa kaas halkaa maxaad u jeedaan gabadha halkaa maxaad u jeedaan donor baad u jeedaan donor waa yani jirkaaga ma ku deeqasaa donor ba halkaa ku qoran waa idiin soo durkinaya waa aragtaan soo maaha si fiican baad u aragtaan organ donor way yani ma donor garaynaysaa xubnaha jirkaaga haddaad dhimatid oo ma laga faa'iidaysan karaa warqad yalow ayaa dadku buuxinayaan marka ay qaadanayo ay dhiiga marka la qaadanayo ay dhiiga ayaa la buuxiyaa markaa soomaali badidoodu qaar baa waxay ku qoreen yes because aqoon umaynaan lahayn waa in hadda laga baaraan dego in laga taxadar dib loogu noqon karo driver laysankii waa in mooshin la xareeyo oo la yidhaahdo arrintaan ma ku noqon laysankaygii maxaa ku qornaa berigan waddanka imi ay dhiiga anigu waa cusbaa luuqad ma aqoonin waa in petition waa in la qoro soomaalida maraykan joogtoo dhammi waa inay petition qoraan oo arrintaan dib aynu ugu noqonno wiilkan soomaaliyeed waxaa laga yaabaa xubnaha jirkiisa maraykan qofna qof iskama qalan karo xaqiiqada dhabta ah qofna qof iskama qalan karo waxaa laga yaabaa in ay dhiiga markuu qaadanayay uu ku saxeexay organ donor sidaas in markuu dhintay su-aasha laakiin waxay ka taagan tahay oo aan raba inaan ummadda soomaaliyeed ay ogaadaan hooyada wiilka wuu baxay daawuu doontay taas hooyada ayaan ka waraysan doonaa inoona xaqiijin doonta maantana wiilalka soomaaliyeed ayaa la hadlay saan maqlay okay arrintan ay dhiigii markaynu qaadananay qof kastoo soomaaliyeed oo waddanka maraykanka joogow markaynu waddankaan nimi waynu dawaqsanay dadku way dawaqsanaayeen waa la iska buuxinayo xiise in hayay laakiin bal in arrintan dib loogu noqon karo waa in petition gobol kasta oo soomaali joogto petition la qoro oo la yidhahdo anagu dad muslimaan nahay ay dhiiga markaan buuxinanay maxaan ku qornay waa in dib qof kasta rikorkiisii ay dhiiga u fiiriyo bartaasay ku qoran tahay waa idiin sheega warqad yar waa jirta dad badan ba oo soomaaliyeed ayaa waxa ay qoreen arrintaas waa kaasa marka arrintaas waa inaynu ka daba tagno oo arrintaa baaritaan aynu ku samayno dad badan oo soomaaliyeed ayaana saan oo kale ay ku dhacday oo inta ay dhinteen xubnihii jirkooda lala baxay waa run wax beera maaha laakiin sharci waxaa lagula baxay dariiq sharciya dariiq sharci la-aan lagulama bixin waddankan waxa waaye kuguma xadgudbayo oo qofna qof dhakhtar iskama qalan karo ma lagugu xadgudbayo haddii aadan adigu markii hore aadan saxiixin yes qofka markuu shil ku dhinto ama uu dhinto waa la qalaa waa la baaraa laakiin arrintan oo organ donor qof kastii saxeexayow ku tasho waa lala baxayaa jirkaagii waa qofkii saxeexayo wixii dhacay hadda waa dhaceen wixii tagay waa tageen laakiin waa in wixii dambe communitygu ka taxadaraan waxaan dib ugu soo noqonayaa war ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliyeed ilaahay baan idinku dhaarshay 4 hooyo oo soomaaliyeed ayaa meydkii wiil yaroo soomaaliyeed oo maskaxiyan xanuunsanaa ka dul ooyaya waxay inoo cadaysay hooyada inay masaajidka wastiga abubakar ay tagtay cid la hadasho ka hoos qaatay ma jirto culimmada soomaaliyeed ee america jooga waa nimanka ugu xaragada badan waa nimanka ugu baabuurta qaalisan wata mid kasta
waxa uu masaajidka uu jooga uu ka qaataa $5,000 oo jeeg ah ama $4,000 oo jeeg ah nin soo shaqeeya ma jiro qaar ba carruurtoodu sekshinay tagan yihiin oo caydhaan qaataan okay qaataba annaga idiin ogol culimadayadii baa tihiin laakiin waa in aad culimadu waxa weeyaan waa waradatul ambiyaa waa in yani culimadan yani waa inaad ummaddii axsaan u samaysaan oo ummaddiinni aad ka warhaysaan ma arkin weli hal wadaad oo soomaaliyeed oo ilaahay baan idinku dhaarshay jikaaka iyo faragali ilaa iyo jikaaka iyo 16 intaa yar keliyaan idin tusayaa inta soomaali waddadaa jiifta ee gabar leh ee islaan leh ee oday leh ee wiil yar leh waad yaabasaa dad waxaa jira aan balwadi meeshaa keenin laakiin ehel xuma intay ku dhacday iyagoo yaryar carruuro waxaa magaaladan jooga faamligoodii reer hebelow hebel iisii kaxeeya ama reer hebelow heblaayo iisii kaxeeya ay ka dhacday oo hadhow ilmihii dariiqii lagu sii daaye war masaajidadu inay culimmadu hal culimo wadaad oo dadkaa maalin cunto u qaybinaya samara weligay ma arkin war intaasaan magaalada saa xuuri duuri aan saa u wareegaa war waxaan arkaa gabdho soomaaliyeed oo biyo wada oo raashin wada oo dhar wada war xitaa waa dayacan yihiin waa aradan yihiin dhaxantan aad aragteen yani waxyaala yani hal wadaad oo hal axsaan samaynaya weligay ma arkin war aawa culimadii maalinta ay lacag rabaanna baabuurta ugu quruxda badan magaalada culimadaa wadata khamiiska ugu quruxda badan ugu nafsiisa culimadaa wadata mid waliba ipad iyo tablet u soo wataa qaaliga iyo telefoon iphone highlander miiran bay wataan wata annagaaba idii ogol culimadayadii baa tihiin laakiin ilaahay baan idinku dhaashay 4 hooyo oo soomaaliyeed oo kula masaajidkii baan tagnay oo cid wax noo qabatay ma jirto nalalama hadlin ummadda soomaaliyeed salaadii maghrib bay dhaaftay waa tukanayaa waxa weeye arrintan waa arrin qaracana arrintan way dhacday insha Allah bidnillaahi kariim maamadan la xiriir doona sida ay sheegay dabcan sar baa wax u guraya qofkii caawinayo hooyada Soomaaliyeed dabcan sar ugu dir sheekh dabcan sar ugu dir qofkii caawinayo insha Allah bidnillaahi kariim waa la hadli doona qofkii wax tarayo maamadaas hala taro oo hooyanimaha loo taro ilmahaas agoonnimay ku soo korisay mental buu ahaa 14 jirkiisiiba xanuunka maskaxdu ku dhuftay culimadii Soomaaliyeed uma naxariisanin community ugu ma naxariis 4 hooyo oo Soomaaliyeed baa meyd ka dul ooyay lacagta ugu badan ee masaajidada lagu dhisana qaar dumarka Soomaaliyeed qaar baa dahabkoodii dhigay marka ilaahay baa idinku dhaashay maanta foolxumada ka dhacday Columbus foolxumada ka dhacday iyo waxa maanta ka dhacay Ohio shacabka Soomaaliyeed waa wada arkaan wadaad Soomaaliyeed oo dambo aniga khamiis lahay soo qaadan waxna hay sheegin daalimiin wadaadada Soomaaliyeed dantooda yaqaan warkii maxkamadda dhexe yimid ee suurka soo qaatay hooyo Soomaaliyeed ayaa kursiga ku xiga markay daawatay fiidowgii ninkeedii oo gaar inta lagu dhuftay ilma 4 jir oo dhintay madaxa lagaga sii jiiday ninka taageeraya dhinaca fadhiyay ninka dilka geystay wuxuu ahaa wadaad xasan dhooyo ahaa Minnesota dhan waa laga yaqaanaa wadaad buu ahaa masaajid hadda wuxuu ka qayliyaa ku yaala Bloomington haye wuxuu u soo raacay hooyadiis aan isku qabiil lahaa xaruntii qabuulka uu ka muuqanayaan laakiin kama muuqanayaan xaruntii yani dadka axsaanka loogu sameeyay iyo dadka dhibban waa ka baxaya barnaamijka salaadii ugu soo gashay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh